dufcaddii labaad ee ardayda barnaamijka shaqo qaran uga qayb galay gobolka Gabiley ayaa salaasada 2 Juun 2020 lagu soo dhaweeyay magaalada Gabiley waxaana soo dhaweynta ardaydaasi ka qayb qaatay maamulka gobolka Gabiley saraakiisha laamaha amniga iyo mas'uuliyiin kale dhalinyarada ka soo laabatay barnaamijka carbinta shaqo qaran ayaa markii ay soo gaadheen magaalada Gabiley ayaa soo bandhigay ciyaaraha gaardiska iyagoo sidoo kalena salaan siiyay mas'uuliyiinta halkaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah dhalinyarada ka soo laabatay barnaamijka carbinta shaqo qaran oo dareenkooda la wadaagay dadka halkaasi ku soo dhaweeyay ayaa sheegay in ay farxad kala soo laabteen iyagoo u mahad celiyay madaxweynaha qaranka Somaliland oo ay sheegeen in uu suuro galiyay fikirka barnaamijkani sida hadalkooda u dhigeen waa maalinta kaliya ee ay shaqaysay wixii aanu soo baranay 16 sano iyo qalinkii aanu sidanay 16 sano waa maalintii kaliya ee ay shaqaysay shahaadadayadu keensatayna inaanu dalkayga aamino dhinaca kale barsaab ku xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in arintani ay dhiirigelin u tahay ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo dugsiyada dalka isagoo sidoo kalena u mahad celiyay madaxweynaha qaranka Somaliland hadii shalay arday kaliya ahaydeen maantana aad ciidanka tihiin oo sidii madaxweynuhu sheegay atihiin kaydka qaran ee ciidanka aad ka tihiin oo la idinku tireen maanta la idin tirsanayo runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha barnaamijkaasi miraha dhalay oo iska daanasteexeena cadawgeena xataa ka marxaati furay sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Gabiley maamulka dawladda hoose ee degmada Gabiley kuwaasi oo dhamaantood iska daba maray muhiimadda ay ardayda iyo dhalinyarada u leedahay barnaamijka shaqo qaran sidii madaxweynuhu sheegayna ciidamada qaranka ka mid yihiin markii la idin baahdo ciidankaydu diyaar ah baatiin ilaahay idinkana kuwii dalkooda iyo dadkooda u shaqeeya ee anfaca Allah idinka dhigo anaguna qalbi farmaan ku soo dhaweynaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo fikirkan iyo barnaamijkan shaqo qaran oo wadankeena aynu rajeynayno inuu wax weyn ka bedeli doono kana bedelay moralkii iyo niyaddii dhalinyarta Somaliland wax weyn ka bedelay runtii hirgelinteeda lahaa waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa howlwadeennada barnaamijkan Sikriye Nuux Ibrahim codka bariga Afrika gobolka Gabiley si aad joogto uga hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaangeli channelkayga YouTube-ka ama dooro bogga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka